Midowga Afrika ma lahan dadka Afrikaanka ah ee waa xarun u adeegta gumaystihii hore oo weli xarkaha ka soo jiidanaya meelo qarsoon. Tani waa runta naxdinta leh ee ka soo yeertay madaxweynaha dalka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré oo dhowaan bixiyay wareysi xasaasi ah oo taabanaya aasaaska Midowga Afrika. Markuu hogaamiyuhu muujiyay in xitaa ay Midowga Afrika ay dhiseen gacmo shisheeye, waxaana lagu qasbay buu yiri inaynu wajahno xaqiiqo lagu dulaysan yahay. Ma helnay madax-bannaani dhab ah mise weli waxaynu ku noolnahay gumaysi dadban? Ilaa goormee ayay dadka Afrikaanka ahi ku baraarugayaan una dulqaadan doonaan aragtida hogaamiyayaasha Afrikaanka ah oo u dhaqmaya sidii caruusadda oo kale, halka dahabkooda iyo kheyraadka dalkooda loo daabulayo si loogu hodmiyo kuwii mar dalalkooda baday gumaysiga ay ku jiraan? Arrintani ma khusayso Burkina Faso oo keliya, balse arrintani waxa ay ku saabsan tahay badbaadada qaaradda oo dhan. Haddii aad aaminsan tahay inay tahay waqtigii ay Afrika ku baraarugi lahayd waxa socda, ku soo qor qaybta hoose ee faallada commentiga Afrikada ilbaxday. Sidoo kale ha iloobin inaad channelka subscribe dhahdo kuna salido xabiibkeena suban. Ibrahim Traoré waxa uu noqday codka jiil ka daalay inay ka gorgortamaan dal ay iyagu leeyihiin. Waxa uuna u taagan yahay sidii dagaalyahan keligiis ah oo ka geysta nidaamka awoodda caalamiga ah ee dalbanaya inaynu u hoggaansanno beddelka dimuqraadiyad maran oo keenta dhiig iyo dhibaato oo keliya. Traoré waxa uu su'aal weyn geliyay nidaamka dimuqraadiyadda ee reer galbeedka ee lagu qasbay dalalka Afrika, isaga oo ugu yeedhay hub lagu gumaado dadweynaha. Waxa uuna tusaale u soo qaatay dalka Liibiya. Dalka Liibiya waxa uu yiri beri waxa uu ahaan jiray meel barwaaqo sooran ah, laakiin maanta waxaa burburiyay ficilo ka dhashay faragelin shisheeye. Traoré waxa uu leeyahay haddii dimuqraadiyaddani ay tahay mid fiican, maxaa had iyo jeer ay gogol ugu tahay kheyraadka dalkeena in la boobo? Afrika waxay u baahan tahay nidaam ka unkama dhulkooda ee ma ahan mid laga soo waarido Paris amaba Washington. Kacaanku waxa uu ku dhisnaan doonaa 3 tiir oo udub-dhexaad u ah guul, dib u dhis iyo madax-bannaani dhab ah oo saamaysa guud ahaan Afrikaanka. Traoré waxa uu si geesinimo leh u kala diray xisbiyadii siyaasadda ee Burkina Faso. Waxa uuna sheegay in siyaasadda Afrika ay noqotay ganacsi, ganacsatada ayaana maalgeliya ololaha si ay hadhowti u xadaan hantida qaranka, iyaga oo u isticmaalaya khasnadaha dowladda sidii bakhaar ay iyagu maamulaan oo kale. Waxa uuna caddeeyay inuusan ahayn nin siyaasi ah oo la iibsan karo, isaga oo u sheegay ganacsatadii laaluushka ula timid inay canshuurta bixiyaan sidii muwaadiniinta kale. Hogaamiyuhu waxa uu shaaca ka qaaday inuu ka badbaaday isku daya dil iyo kuwa afgembi oo badan. Waxa uuna isticmaalay ereyga Ceylon slaves, waa dadka afka nala wadaaga laakiin quluubtoodu ay u daloolaan buu yiri gumaystaha reer Yurub iyo Ameerika. Waxa uuna xusay in hogaamiyayaal badan oo maanta ka taliya qaaradda Afrika loo haysto maanta rakaato iyo muuqaalo ceeb ah sidii dhibaatadii ku dhacday Abistin, si loogu hanjabo markastana loogu khasbo inay saxiixaan kheyraadka dalkooda. Madax-bannaanidu ma ahan buu yiri Ibrahim Traoré hadal iyo faan oo keliya ah, ee waa dhismaha kaabayaasha qaranka iyo horumarinta dalka iyo isku duubnida dadweynaha. Traoré waxa uu diiday shirkado shisheeye oo weydiistay balaayiin dollar si ay u dhisaan jid 2 haad ah, balse beddelkeeda waxa uu iibsaday qalabkii lagu dhisi lahaa dhulka. Waxa uuna bilaabay inuu dhiso jid 4 haad ah oo maanta ka mid ah highway-yada ugu weyn dalka Burkina Faso, kaas oo dhismihiisa ay ka qayb qaateen dhalinyaro Afrikaan ah oo Afrika wax ku bartay. Dhinaca dahabka, markii reer galbeedku ay isku dayeen inay Burkina Faso saaraan cunaqabatayn dhaqaale, Traoré waxa uu joojiyay wax soo saarkii dahabka. Waxa uuna yiri madaxweyne Traoré, haddii lacagteyda la xiro, dahabkiinana waxa uu ku xirnaan doonaa dhulkayga. Waxa uuna dahabkaasi u isticmaalay inuu si toos ah ugu soo iibsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droneska si uu ugu difaaco dalkiisa. Madaxweyne Traoré waxa uu xusuusiyay dunida in axdiga ugu horeeya ee xuquuqda aadanaha uu ka yimiday boqortooyadii Mali ee uusan ka imaanin dalka Faransiiska iyo dalalka la midka ah ee maanta ku andacoonaya inay ka shaqeynayaan xuquuqda aadanaha.
waxa uu weydiiyey hay'adaha caalamiga ah waa maxay xuquuqda aadanaha, xaq ay leeyihiin baa kooxaha xagjirka ahi inay mar walba gumaadaan isla markaana ay gubaan dalkeena oo adinku aad ku noolaataan nabadgelyada iyo ammaanka. Xaqa koowaad ayuu yidhi Madaxweyne Traore waa xaqa nolosha. Ibrahim Traore oo ka jawaabay dagaalka ay kula jiraan warbaahinta reer galbeedka dowladda Burkina Faso ayaa sheegay inay tahay uun gumaysi itaal u waayay dagaal inuu la galo dalalka qaar oo habab kale u wajahaya dhibaataynta Afrikaanka ah, iyadoo markii uu Madaxweyne Traore bixiyay wareysigan maalin kadib ay warbaahinta reer galbeedku ay bilaabeen inay bogag dhan ka qoraan propaganda ku saabsan dowladda Burkina Faso si loo damiyo saameynta weyn ee uu yeeshay wareysigan taabanaya xaqiiqada jirta maanta. Madaxweyne Traore waxa uu dhalinyarada Afrikaanka ah ugu baaqay inay yeeshaan han iyo aqoon iyo karti, waxa uuna rajaynayaa in Afrikaanku ay noqdaan kuwo iyagu leh farsamada, sidoo kalena samaysan kara waxyaabaha ay u baahan yihiin, sida in ay farsamaystaan cudbigooda, soo saartaan shukulaatadooda, mar walbana ay maamushaan kheyraadka dahabka iyo macdanta ah ee qaniga ay ku yihiin. Madaxweyne Traore waxa uu sheegay in mar walba qofku uu u baahan yahay inuu soo saarto quudkiisa si uu uga madax bannaanaado dal kale oo la maamulo kheyraadkiisa, isla markaana dhibaateeya guud ahaan nabadgelyada iyo ammaanka dalkaasi. Waxa uu sheegay siyaasadda iyo dimuqraadiyadda reer galbeedku ay wadaan inay tahay mid lagu marin habaabinayo sidoo kalena lagu dhibaateynayo dadka Afrikaanka ah si mar walba Afrika ay ugu jirto gumaysiga, isla markaana aysan fikirin ee loogu fikiro. Fadlan daawade, haddii halkan la soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran, waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa muuqaallo iyo sheekooyin xiiso badan.